barnaamijka daabuurka ee subaxa hore kaasi oo ay wasaaradda waxbarashadu ku dhiirigeliso daayarta ku jira goobaha waxbarashada subaxii hore ee saaka wansuuriyiinta wasaaradda waxbarashadu waxa ay kala qayb galeen dugsiga sare ee Dayibguray Secondary School waxaana horkacayay wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada barbaarinta sayniska Soomaaliland iyo gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ee wasaaradda waxbarashada ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsigaasi Khadar Cabdi Khayre agaasimaha waaxda xog isgaarsiinta gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ee wasaaradda waxbarashada abwaano iyo mas'uuliyiin kale saaka sharaf bay nootay inaad nagala soo qayb gashaan daabuurka dugsiga sare ee Dayibguray waan idin soo dhaweynaynaa idinkoo haw shaqo ku jiray baryahan boo dugsiyada ku marayay waan idin soo dhaweynaynaa dugsigan sare ee Dayibguray waxaa la furay 2004 ayaa la furay waxaan ka mid ahaa macallimiintii waqtiga bilowday ayaan ka mid ahaa 2004 waxaa ka baxay 17 lod ayaa ka baxay maanta waxaa galaasyada lagu dhigtaa ay marayaan 13 fasal tirada ardaydu waxay maraysaa 830 arday runtii intaanu ku guda jirno barnaamijkan subaxii ama daabuurka ee aroortii dugsiyada ku tagno runtii saddex shay un baan xoog saarnaa oo ardayda ka wacyi gelinaa kuna baraarujinaa inay naftoodana ku ilaaliyaan bulshadoodana wax ugu taraan mid waa aqoonta midna waa akhlaaqda wanaagsan iyo diinta mid kalena waa nabadda iyo wadajirka bulshada dhexdeeda waqtigiina aad ilaalisaan maanta waqtiga haddaydan ilaalin bari isaga ayaan idin ilaalinayn maanta waqtiga ilaaliya oo saacada ilaaliya oo iskuulkiina ku ilaaliya oo naftiina ku ilaaliya si uu bari waqtigu idin ilaaliyo macadi idin soo dhawaatay laba ballanqaad ban kulay idin sameeyay ardayda form 4ka inay jaamacaddu practical ka caawiso ardayda form 4ka chemistry-ga iyo waxyaabaha kale lab skill-ka u baahan kaga ballanqaaday hadii labkii ama infrastructure-ka waxa weey iskuulka wax laga qabanayo baadee wax la qiimeeyay wixii la qiimeeyay qayb baan ka qaadan doonaa waxaan nidhi iskaashigu waa muhiim aayaha lagu gaarayo aqoontuna waa u tiir idinku ubax baa tihiin aayihii bari baa tihiin ammaankuna waa dantiin akhlaaqda wanaagsan iyo aqoontu waxay kortaa ammaanku markuu hirgalo dardaaranku waa muhiim dadkuna waa wada wadaal oo danbay wada leeyihiin oo dalkay wada leeyihiin dantooduna waa mid qura macallinkii waalid la'aantiin may dhacdeen maanta baxalfadaasiyo rajaa noo muuqatee macallinkii waalidkuba kun jeer bay mahadsanyihiin maxay cilmi noo dhigeen aqoon nagu maamuleen si aan u gaadhno meel ducada nagu miisayeen barashada tacliintiyo cilmigoo la badiyaa ina baahi tirayo dalku bilicsimaada bulshaduna u ayda baratanka adduunkana baal sare kaga taal buugga iyo qalinka iyo xirfadaha kale badan barxun laguma bariisto waa hodan nin beegsaday dugsigan aan joogno maanta Dayibguray waa dugsi taariikhi ah oo runtii magaca uu weyn yahay uu ka mid yahay magacyadii ugu waaweynaa ee mujaahidiintii dalkan dhiigga u huray ee nafta u huray waxa la rabaa inaad ku dayataan oo noqotaan dadkii dhulkan lahaa oo ardayga maanta jooga waa madaxii bari waa sargaalkii bari waa raggii qiimaha mahablihii qiimaha u lahaa dalka taa inaad horta niyadda gelisaan oo noqoto muwaadin jecel waddankiisa wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada barbaarinta sayniska Soomaaliland mudane Maxamed Yuusuf Ibrahim Faacuul oo halkaasi ka hadlay ayaa la dardaarmay ardayda dugsiga Dayibguray Secondary School aad baan ugu faraxsanahay iskuulkii aan runtii anigu aan ka bilaabay dugsiyada sare inaan maxay ahaydey aan maanta aynu ishor fadhino ardaydiisii iyo maamulkiisii macallimiin badan oo macallimiintaydiina ay halkan iga muuqdaan maanta runtii waa maalin weyn waa iskuullada ugu maxay ahaydey magaca dheeraa mujaahidkii Dayibguray loogu magac daray waa iskuul runtii qiimo leh waxbarashada iskuulku wuxuu ka bilaabmaa ardayda ayuu ka bilaabmaa iskuulka tayadiisu waxaa sheega oo qiimeeya
ardayda ayaa sheega waxbarasho tayo leh in la idin siiyo annaga diyaar u ah idinkana waxa la doonayaa ardaydii waxbarashada tayada leh dee qaban karisay hayn karisay waa inaad idinkuna noqotaan haddii ilaahay dhaa oo diyaar u noqotaan barnaamijkan oo muddooyinkii u dambeeyey ka socday caasimadda dalka jamhuuriyadda somalilan dugsiyada sare ee ku yaala ayaa lagu dhiirigelinayay da'yarta ku jira goobaha waxbarashada.